بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فصل: أسباب التيمم ثلاثة. أسباب التيمم تيمم كأسباب تيسو ثلاثة صدح وين سببها أما أرنت كيني كرتو إن لا تيمم وصدح سببات. فقد الماء سبب ككوبادي أبوه الرئي وحوي فقد الماء بيئو لواي بيه أيا لوايبو ما اللي هليه ولا تيمم يا والمرض سبب كاللبادنا وحوي المرض قفك بيه وهلي كراه لكن ما استعمال كراه وحا عذر تودي بيه استعمال كودي با عذر تودي. المرض قفكي وحنوسي هاي بيه ما استعمالك. سبب كصدحات الله تيممك روحوي والاحتياج إليه إلى الماء لعدش حيوان محترم بيه والهيرك راه لكن حيوان محترم هو حرمله أيا أؤمن به مركا أسقو حيوان نولا أو نفله أو محرمله وبيها أباهي هاي لقوما ويسيسن كر لقوما طهار قادن كرو حيوان كا محترم كا هلا ورابين يا بيها ولا تيمم ولا تيمم. تيمم كسببها كان مساوت الله تيمونه صدح لا سببات وي. فقد الماء بيه إن لوايو ما بله لكر بيه بلواي قفك بيه هو فقد الماء حسن قفك محدث كاي ويسال أنت يكي جنوب كاي جنابة قبل يعني حدي بيه وسهل كريم وكتيمم ياو وتيمم يا. والمرض سبب كاللباد من أسباب التيمم وحوي المرض مرض قفك وحنون سنيا ومركاسو بحنونكو هيا بيه ما تابن كرو أما هدو بيها استعماله أو تابتو وكو حنون سنيا بيه وكو حنون سنيا ومرض جركي صورن كو قنصن أما حمن جركي سكمدا أيا حنون كسوغن يهي داوع باكو سوغن مركا هدي أو بيها استعماله داوعي باكو زيادي أما حنونك باكو بدني أما منفعة حبن يعني حبنك أيات تجيسو أما يعني حنونك با زيادة نقنية زيادة يعني مرض والألم أما وحكسو يعني حدوث شيء فاحش حبنك داوعها أما ماشي نبرك أجي الهدي بيلو استعماله داوعي وحو كينيا فولحما وين بو كينيا يعني سفي عنو ما بكسونيو سحن بو بكسونيا marka daawac foolxum buu noqonaya haday xibin daahira tahay muuqanay muuqanay sababahaas oo dhan haday yimaadaan oo la malaynayo ama la yaqiiniyo waa laga tayamumaya markaas qofkii uu tayamumaya biyaha ma isticmaalayo uu tayamumaya. sababka saddexaad oo loo tayamum waxa weeye biyihi احتياج الاحتياج إليه إلى الماء لعدش حيوان محترم. حيوان محترم وحرمله أيا أباهنوي أو أومن مركز بيها لقمة طهارة قادن كرم وحيوان كمحترم كأو أوميه حيوان كاسا لورابنا يا وحيوان كمحترم كأه لجري oo aan asagoo biyihi u ooman aan la isticmaali karin xayawaan aan xurmo lahayn miyaa jiro wax noole oo naf leh oo aan muxtaram ahayn biyihi lama siinayo asagoo oon u dhimanayo ayaa la isaga dhahara qaadanaya biyihi waa kan weeyo wa ghayru almuhtaram xayawaanka aan muxtaramka inuu xurmada lahayn sitatu lix weeyo taariku salaad salaada qofkii ka tagay
wazani lmuxsan qofkii asagoo nikaax xalaala soo maray oo wax ku arkay haddana markaa kadib zina ku dhacay oo qof garoob ahoo zinaystay nikaax soo maray, walmurtad kii ridoobay, walkaafiru lxarbiyu gaalkii xarbiga ahaa ee islaamka kasoo horjeeda dagaalka kula jiray, walkalbulcaquur iyo eygii dadcunka ahaa ee boqnogoyska ahaa, iyo walkhinziiru doofaarka. lixdaa xurmo ma leh. biyihii ayagoo u ooman ayaa la isticmaalayaa oo lagu dahaaro qaadanaya. wax xurmo ah oo ay leeyihiin ma jiro lixdaas wey, kayrulmuxtaram baa la yidhaha. lixdaa wixii kasoo haray ee xayawaanka noolaha ee nafta ku jirto waa muxtaram oo xurm uu leeyahayo asagoo yacni biyihii u ooman lama isticmaali karo. in la isticmaalona xaaraam wey, in la isticmaalo xaaraam wey. markaas faslun shuruudu tayamumi 10. tayamumka shuruudiisu waa 10. qofka tayamumayo waxaa laga doonayaa 10 shardi baa laga doonayaa. ama waxa lagu tayamumayo tayamumku qofku markuu ansaxayo suuroobayo 10 shardi baa lagama maarmaana. shuruudu tayamumi 10 an yakuuna bituraabin. waxa lagu tayamumayo horta waa inuu turaab yahay, ciid baa shardi ah, turaab baa shardi ah. an yakuuna bituraabin, turaab waa inuu yahay calaa ayi lownin kaana, ciiddaas midabkay doonaba ha lahaato, walow muxraqan baqiya ismuhu, ciid intii la gubay dab la geliyey madoobaatayba ha noqotay, laakiin hadday ciidnimadii magaceedi baaqi uu ku yahay waa lagu tayamumi karaa. turaab baa shardi ah, turaab baa shardi ah, ciid waa in la helo. maxaa yeelay yani ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay fatayamamuu saciidan dayiban, fatayamamuu u qasda saciidan turaaban dayiban daahiran wey, daahiran wey. marka saciidka waa turaab, marka ciid baa shardi ah. wa an yakuuna turaab waana khilaafiya masaladaas oo imaamu shaafici iyo a'imada yani qeyb ka mid aha waxay qabaan waxa lagu tayamumi karo oo tayamum ku ansaxayo inay tahay turaab, boor, ciid waa inay tahay. saasay aayadda ku fasirayaan, fatayamamuu u qasda saciidan ay turaaban wey, turaaban khaalisan lahu qubaar. waa ciid khaalis ahoo yani una bacaad ku jirin oo aan wax kale lagu darin, oo haddana lahu qubaar, boor lahoo markaas sidaa gacanta u saarto boor kaasoo raacay, siiga kaasoo raacaysa waa inuu yahay wey. dayibantana bimacnaa dahuuran weeyaho waa turaab daahir ah wey. turaab waa in la helo, haddana turaabka waa inuu daahir yahay. labadaa shardi haddii la waayo tayamum kuma ansaxayo. haddii wixii turaab uusan ahayna tayamum kuma ansaxayo, laguma gabaysan karo. hadduusan daahir ahayna ciid nijaasa ah wey, turaab nijaasa ah laguma tayamumi karo. bacdu la'ima waxay leeyihiin, siba imaamu axmed iyo aimada qaar ka mida waxay leeyihiin yani turaab waxba shardi meehe, saciidka waxaa looga jeedaa kullu calaa maa wajhi lardi fahuwa saciid. ardada dusheeda wixii saaran oo dhanba saciid baa la yidhaha. marka wax kastoo ardada dusheeda yaalla waa lagu tayamum karaa. geedaha lagu tayamum karaa, dhagaxa lagu tayamum karaa, derbigaa lagu tayamum karaa, waxa ardada korkeeda saaran oo dhan baa lagu tayamum karaa bay leeyihin. marxaba. marka xagga ixtiyaadada iyo dadaalka inaad cibaadadaada dhowrto ood ku dadaasho, xagga madhabka imaam shaafici baa ku dhow. xagga tashiilka markii la yidhaahdo fududaynta dadka loo fududeeyana xagga madhab imaam axmed baa ku dhow iyo aimada la socoto. marka labadaa madhabood wey. marxaba. an yakuuna bituraabin, turaab waa inuu yahay wey. wa an yakuuna turaabu daahiran, turaabku waa inuu daahir yahay. wa an laa yakuuna mustacmalan, turaabka mid la isticmaalay waa inuusan ahayn. mid la isticmaalay oo horey loogu tayamumay waa inuusan ahayn, mar labaad laguma tayamumi karo. yakuunu turaabi lmutayamami fiihi gayru mustacmalin fi xadath, waa inaan xadadka loo isticmaalin oo aan lagu tayamumi.
mustacmal waxaa la yidhaha sidiis. ma huwa almustacmal? biyaha markaanu ka hadlaynay biyaha soo maraynay mustacmal, biyaha mustacmalka la yidhaha. mustacmal maxaa la yidhaha? maa rafaca xadathan ow azaala khabathan, wixii xadath kor yeelo ama nijaaso lagu zuuliyaa mustacmal la yidhaha. masalan biyaad ku weysaysatay, biyihii aada ku weysaysatay baad weel ku horisay oo weel baad ku kor weysaysatay, baaf baad ku kor weysaysatay. biyaha aada ku weysaysatay waa mustacmal markaad weysadaadii dhamaystay, lanna xadath baad ku kor yeeshay, waad ku weysay sooma, xadath baad ku kor yeeshay. biyahaas marka wax taqayura haddayna ka muuqanin oo biyaha midabkoodii urtoodii isma bedelin, wax taqayura kama muuqdo, ziyaado iyo nusqaanna male, waa iska intoodii markaad ku weysaysanaysa un. biyahaas waa iska daahir, waa la cabi karaa, waxbaa lagu karsan karaa, waa daahir wey mustacmalku. dayna wax ziyaadaa iyo taqayur iyo midna aysan taqayurna lahayn, ziyaado iyo nusqaanna ay lahayn, badan ayna ku jirin, waa daahir. laakiin xadath dambe ma kor yeeli karaa, weyse kale ma geli karaa, nijaaso ma zuulin karaa, ma dhaqi karaa, waa mustacmal. mar baa xadath lagu kor yeelay bas mustacmal baa la yidhaha. haddii nijaaso lagu zuuliyana waa la mido, haddii intii nijaaso lagu dhaqo biyihii weelkaa lagu shubana wax ziyaada aysan lahaynna waa la mid, waa iyaduna aga. marka mustacmal waxaa la yidhaha wixii xadath kor yeelo ama nijaaso zuuliyo, kaasaa la yidhaha mustacmal. waa wax la isticmaalay, mar labaad lama isticmaali karo. haddana marka turaabka ciiddu say mustacmal ku noqonaysaa? masalan qofkii ciiddi weel buu kusoo ritay, meeshanay ugu jirtaa, wuu ku tayamumay. markaad ku tayamumtay ciiddaas aad ku tayamumtay mustacmal miyay noqonaysaa? may, taa looma jeedo. mustacmal waxaa noqonaya waxa weeye markaad wejiga mariso turaab, intaad saar gacanta turaabka aad wejiga mariso, haddii wax kasoo daataan, midaa wejiga wixii aad marisay hadduu kasoo daato, taas inuuna ku noqonin baa la doonayaa weelkii. ama tii gacanta aad marisay, ciiddii aad gacanta marisay, waa inayna ku noqonin. marka kan waajibka kor yeelay waxaa lagu tayamumay waa midkaad wejiga marisay iyo gacanta markaad marisay, kadib wixii kasoo daato kaasaa leedahay. laakiin haddaan weelkii waxba ku daadanin, weelkaas muddo badan baa isaga tayamum kartaa weliga, kor baad kasoo qaadanaysaa oo tuimaysaa. waxaad wejiga marinaysa ama gacanta marinaysa waa inay wixii kasoo duulduulo ciiddaas ama kasoo daato waa inayna ku noqonin weelki. waanlaa yakuuna mustacmalan sidaa wey. waanlaa yukhaalidahu daqiiqun wanaxwu, turaabka markii lagu tayamumayo waa inayna ku darmanin daqiiq, budo, meelahan wax kaloo budo ahoo la shiiday waa inayna ku darmanin, iyo wanaxwu wuxuu la mida. turaab khaalisaha la doonayahay, wax kale waa inuuna ku darmanin. wa an yaqsidahu waa inuu u qasdo, wa an yaqsidahu waa inuu u qasdo, oo waa inuu u qasdo macnaha waxaa la rabaa ciidda inaad adigu aada soo qaadato gacantii, ama aad dhul ku dhufato, ama aada yacni walow bilhawaa, hawadaaba aad kasoo qabsatid, oo dabayl baa yani ka dhabanaysa, hawadaas aad kasoo qabsatid, qasad baa lagaa doonaya, wixii inaad adigu gacanta soo qaadato ood markaa marisaa la doonaya. wa an yaqsidahu maxaa la diidayaa? haddaad adiguba u qasdin oo dabayl baa un kugu dhabatay oo siigo fara badan baa wejigaaga iyo gacmahaaga ku dhabatay, taas ma ku noqonaysa tayamum. qasad baa raba in la hele. aturaab yani qasdu mutayamimi aturaaba binaqli way, walow bificli gayrihi biidni. qof kaleba yani ii tayamum ba ha yidhaahdee, qasad baa la doonayaa, qasad. wa an yamsaxa wajhahu wa yadayhi bidarbatayn, wejiga iyo labada gacmood waa inuu darbatayn mariyo. darbatayn, tayamumku waa darbatayni, darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayni. mar baad ku dhufanaysaa gacanta, wejigaad marinaysaa, mar labaad baad marinaysaa gacanta bidixa, tan midigtaasaa u maraysaa, gacanta midigna midna bidixaasaa u marin. labadaa jeer weeye tayamum. tayamumku waa darbataynkaas. haddaad weyse la-aan ka tayamumayso iyo haddaad janaabo tayamumso od qabays ka tayamumayso waa isku mid un. xibnaha laga tayamumana wejiga iyo labadaa gacmood un way.
tayamumkuna labadaa jeer waa darbatayn wey, darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayn bas khalaas. wa an yamsaxa wajhahu wa yadayhi bidarbatayn wa an yuziila nijaasata awalan, nijaasada waa inuu iska zuuliyo marka hore. markaad tayamumayso hadday badankaaga nijaaso ku taalo, nijaaso aan lagu cafinin, aan macfi ahayn baa kugu taalo. nijaasada macfiga ah waxyaalaha waa yar waxaan ishu arkaynin iyo wax yar oo maca dhiig yar oo kaa soo baxay iyo waxyaale nijaaso macfi ah la yidhi. nijaaso yar oo macfiyaad aha jirto. nijaaso lagu cafinin macfi aan ahayn hadday jirkaaga ku taalo oo meel baa nijaaso kaaga taalla, intaada tayamum nijaasada waa inaad iska zuuliso. wa an yuziila nijaasata awalan, nijaasada marka hore waa inuu iska zuuliyo. izaalatu nijaasati lbadani gayri lmacfuwi canha qablahu qabla tayamum, ayna amkanat hadday suuroobaysa wey. waxaad iskaga dhaqda nijaasadaas iskaga zuulisa haddaad hayso. de haddaad biyo la-aan ba u tayamumayso ood biyaba haysanin, jirkiina nijaaso ay kaaga taalo, biyo la-aan baaba u tayamumaysa, maxaad nijaasada ku zuulin? wax ku dhaqdo ma haysanin. waa hadday suuroobaysa imaamkanad nijaasadaas marka hore iska zuuli. biyo yar baad haysataa oo nijaaso aad ku dhaqi karta laakiin aan weyse kuugu filnayn, nijaasadaas aad isaga zuulinaysaa, waa tayamumaysaa. haddii wax lagu zuuliyo la waayana fayasixu tayamumuhu macaha maca nijaasati cinda ibni xajar. ibni xajar iyo yani imaamu ramli ayaa iskhilaafayo. labada yani sheekh ee marjica fiqiga shaaficiga ugu waaweyn ee la yidhaha qamaraynka la yidhaahdo, oo labadooda qowl ay siman yihiin, midkaad doontaad qabsan kartaa. marka nijaasadii wax lagu zuuliyaa badankaaga meel baa nijaaso kaga taallaa, waxaa ku zuulisana ma haysid. waa tayamumaysaa, waa tukanaysaa. fayasixu tayamumuhu macaha cinda ibni xajar wa yusallii salaada faaqidi duhuureyn cinda ramali. haddii aad nijaasadii kugu taallo oo waxaad ku zuulisana aada haynin, iska tayamum, iska tukulaya ibni xajar. imaamu rabaliguna wuxuu leeyahay ma tayamumay sida iska tuko, adoon tayamum baa iska gelaysa. faaqidu duhuureyn baa la yidhaha. salaatu faaqidu duhuureyn waxaa la yidhaha haddaad biyo aad ku daharo qaatana aada weydo, ciid aad ku waxaad taraab aad ku tayamumtana weydo, ama meel xabsi ah aadba ku xihan tahay oo meeshaad ku xihan tahay waa meel xabsi ah, meesha waxaan oo dhanna waa nijaaso, derbigii iyo macalgudi meel kasta waa nijaaso. faaqidu duhuureyn, salaatu faaqidu duhuureyn, nin dahaaro waayey waa iska tukanay, waad salaadii waad iska geli, waad xidhani, waad iska tukan. haddaad meel ku xidhan tahay, meesha aad ku xidhan tahayna meel nijaaso ay tahay, laguma sujuudi karo, waa nijaaso meesha. waad istaagi salaada, waad iska rukuucaad ka ishaaraysaa, sujuudi iyo rukuuciba waad ishaaraysaa, ee meesha nijaasada wejiga dhigi maysa. maxaa la yidhahdaa salaadu say kuu qabataa loo tukadaa, soo lama yihahda. waa siday kuu qabata wey. salaad meel looga tegaayaa ma jiro, saad baad ku tukani, hadhowna salaada waa soo celi. wayajibu calayhi alqadaau cindahum, labada jeerba salaada waa soo celinaysaa. oo nijaasada adoo kugu taalaad iska tayamumtay waa tukatay, ama maada tayamumina waa iska tukatay. saasay labada imaamba leeyihin, ibn xajar iyo ramali. salaada labada goorba waa soo celinaysaa mar haddii badankaaga nijaaso ku taalo aan la zuulini. wa an yajtahida fi lqiblati qablahu qabla tayamum, intaada tayamun horteed waa inaad qibladii ku ijtihaado. markaad ogaato qibladu meeshay jirto, haddaad qiblada kaa wareersanayd wey, marka hore garan lahayd, marka hore qibladii raaraadi, markaad meel u malayso markaasaad tayamumaysaa, horaad ka gelaysa salaad. wa an yakuuna tayamumu qabla dukuuli lwaqti, wa an yakuuna tayamumu bacda dukuuli lwaqti. tayamumku waa inuu yahay waqtigu markuu galo kadib. oo tayamumku waa dahaaro daruuro ahoo biyo markii la waayo waktigiina galo oo salaadii inay kaa tagta aad ka yaabto, markaa unbaa tayamumaysaa. waktigii oon weli la gaarin iskama sii tayamumaysa, inaad biyo heshaaba laga yaabaa. waa inuu waktigii galo kadib, markuu waktigu galo kadib baad tayamumi kartaa. wa an yakuuna tayamumku waa inuu yahay bacda dukuuli lwaqti, waktiga markuu galay kadib wey.
وأن يتيمم لكل فرض قفك وإنه تيمم صلاة كستو فرضة هل صلاته يعني هل تيمم الله فرض كم تكن كرتي دور كيبا بيويدي واتيممتي عصر كيبا قالي هذا واتيمم هذا بيه لهين مغرب كيبا هذا قالي واتيمم عشي با هذا قالي واتيمم هل تيمم الله فرض كم تكن كرتي وأن يتيمم لكل فرض فرض كلا أركا وإنه أتيمم فرض كست وإنه أتيمم فصل فروض التيمم 5 تيمم كفرضيال كيسو أما أركان تيسو 5 شنوي الأول كان كوباد نقل التراب عيد وإنها تسوق قادت قعنتي بعد صار سعيدي وكسو قادنيسا نقل التراب عيدي وتسوق قادوي الثاني كلا بعد النية وإن النيوتوي حنيونيسا استباحة فرض صلاة استباحة فرض صلاة نويت استباحة فرض صلاة صلاة بارتينة تكسوما نويت استباحة فرض صلاة تيوم كسيديسا استباحة وحوال بنيسان يساي رفع الحدث معها وبيو حدث كوي كوريا لين ويكازو لين لكن تيمم كوات كوب بنيسان يسا صلاة دينا تكتو كتاب القرآن كاينات قادو قرآن كاينات أخرسو ساسا كوب بنيسان يساي واستباحة مالك استباحة فرض الصلاة ساسا لين مالك صلاة كنيسو الثالث كصدح المسح الوجه وجهي والله مسحوي وجهي المسحيسا marka saa u mariso gacanta u saarto aad wajiga marinaysa marka gacanta ciida saaraysa ayaa niyoonayta nawayso istibaaxati fardi salaat aad ku dhufanaysa ila aad wajiga ka marisa gacantana niyada waa haynaysa الرابع كنفرات مسح اليدين الى المرفقين gacmaha waa inaad masaxdo ilaa iyo jaqalada ama ilaa xusulka intii weysada la marin jiray ba tayamumka yani yaad gaarsiinaysaa waa ilaa jaqalkaad marinaysaa masaxaysaa الخامس كشان الترتيب بين المسحتين لبدا مسح وإنات كلا ترتيب يسوي الترتيب بين المسحتين ضربة للوجه وضربة لليدين تنكوبات وجهي هاد مريني مركا لبادنا قعمها هاد مريني وترتيب باشر دي ترتيب وإن هذا قعمها هر مريني وجهه وإنه هرية قعمها للوحجين فصل مبدلات التيمم 3 تيممك واحد برينية وصدح صدح الرماد وتيممك كبرى ما أبدل الوضوء وحال وحي ويسبرية وبرينية وحكسو ويسبرينية تيممك كبرى ونواقض وضوء واتقرني سوان صومرناي قفك هدو وحكسو بحا خارج وكسو بحا هدو قفا جنبي أتابتو هديه يعني وفرجي تابتو وحي ويسبرينية تيمم كان وبرنيا ما أبدل الوضوء وحلا وحي ويسبري تيمم كان وبرنيا والهدة هددنا ويبرنيسا قطع الإسلام حقيقة وحكم بالي هدد قفك با إسلام نمدي كبحي نعوذ بالله تيمم كيسنا وبري وبريا مرادور هدوغ وتوهم الماء biyo oo la maleeyona way burinaysaa in tayamama lifaqdihi faqd ilmaa haddii aad marka hore biyo la-aan waxaad u tayamta hadday lahayd biyo la-aan ahayd oo biyo aad tawahumto qalbiga ay kusoo dhacdo meesha in biyo laga helayaan marinayaa amaad biyo heli lahayd tayamkaagi wuu buray meeshaas waa inaad biyihii ka raadiso markaad ka weyda haddaad ka weyda kadib markaa unbaa tayamum haddana marba haddaad biyo tawahumto waad inaad heli lahayn baad u malaynaysaaba haddaad tidhaahdo وبريا تيمك وتوهم الماء إن تيمم لفقده فقد الماء توهم كحلل الظن والشك واد ملايسين بيهلس أما واد كشك سي وكا به وهو أركي ضرور أو كالعاد ماشى كبوغ الكاسي شوف روبا كدا ماشى أما السراب هو أركي سراب ماشي كبرق برق بيشو واحد بيا وحق سجل شو
saraabku waxaad biyo u malaynaysa waay markaad oomantahay qoraxduna aada u kulushaa meesha banaanka waxaa biyo usaa u waran baad moodaysaa dhulkasaa u waran saraab baa leeyahay dhaandamangaale kaasa leeyahay marxaba marka haddaad waxaas malaysood biyo inaad helaysaba u malayso bas wey tayamkaagi wuu buray meesha waa inaad fiiriso horta faslun aladi yadhuru min النijaasaati ثalaaثa aladi kii yadhuru daahir noqonayay oo min النijaasaati nijaasooyinka ka mid a halaaثatun saddex waaye nijaaso shay asagoo nijaaso ahaa haddana daahir haddana noqonayo daahir u noqon karo waa saddex shay aladi yadhuru min النijaasaat halaaثatun saddex waaye alkhamru idaa takhallalat binafsihaa alkhamru khamradii daahir bay noqonaysaa idaa takhallalat hadday khalowdo binafsihaa nafteeda khamro waa nijaaso waana xaaraan wax alla wixii muskir ah oo qalbiga iyo xiska qaadayo yaa la yidhahdaa khamru kullu muskirin khamr wa kullu muskirin wa kullu khamrin xaraam wax alla wixii muskir ahoo wax waaliyo oo caqliga qaado waa khamro khamro kulligeedna waa nijaaso waa nijaaso wey marka khamradii way isbedeshay oo markii la cabo waa lagu waalanayo soo maaha keligeed baa meel la dhigay say u joogtay unbay isbedeshay inqilaab baa ku dhacay way isbedeshay waa wax macaan oo la iska cabayo malabahay noqotay oo wax iskaar ana aan lahayn waxba waalinaynin daahir bay noqonaysaa khamradu daahir bay noqotaa waxba laguma ridin wax laguma samaynin aka daahir bay noqonaysaa ayadii baa daahir noqonayso weelkay ku jirtayna daahir buu noqonaya hataa markii hore ayna daahirka ahayn waa iyadii iyo weelkeediiba hal maray isbedelaysa khamradii haday isbedeshay khal noqoto way wa jildulmaytati maytada harageedii ama maqaarkeediina daahir buu noqonayaa idaa dubiqa haddii la magdiyo maqaarkii shaygu hadduu dhinto mayta maxaa la yidhahdaa wixii dhintay oo bikayri dabxin sharciyin gowrac sharciga aan ku dhimanin waa mayto wixii aan ma'kuul ahayn de hadduu markii horeba maytadiisa waa iska dee waa nijaaso wey waa lama wixii xalaasha ahaa ee la cunayay ma'kuulka ahaa ee la cunayay haddaan sidii sharcigeed loo gowracin lama gowracin ama waa la gowracay gowraciisa waxbaa ka dhimana si sharcigeed looma kamilin maytuu noqonaya waa bakti wey marka mayto idilna waa nijaaso harageeda hilibkeeda lafaheeda waxeedo dhan kulli waa nijaaso marka maytada haragga bas a wey maytada harageeda daahir noqonaya goormuu daahir noqonaya idaa dubiqa markii la magdiyo wey jildulmaytati idaa dubiqa daahir buu noqonayaa oo see daahir u noqonayaa marka hore wax dhahaaraa ma aqbalaynin maqaarkan intaan la magdinin ee dhogortiisa iyo wixiisa u watay dhahaaro ma aqbalaynin haddii biyo kasta la geliyo laakiin markii la magdiyo oo kor iyo hoosba laga magdiyo markaas wuxuu noqonayaa maradaas oo nijaaso gaartay haddii biyo la geliyo sooma daahir noqonayso saasoo kale noqonaya biyo unbaa saas loo gelinayaa bas daahir buu noqonaya aluu tukanayaa ama wax gobol baa laga samaysanaya ama waxbaa laga tolanaya caadi wey waa la isticmaalaya maytadu markay dhimato maqaarkeeda lagala baxa waana la magdiyaa saas neef ari ahoo dhintay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam arkay umeydahoo yaal markaasuu yidha hal intafactu war maxaad ugu intifaaci weydeen markaas yaa rasuul allah inahaa mayta way baktideen maxaan ku intifacnaa markaasuu nabigu yhi alay sl inamaa xaruma akluha hilibkeeda in la cunaa la diidaye haragga haddaad kala baxdaan oo haraggeedaa la magdiyo daahir buu noqonaysa
وحكى له النبي عليه الصلاة حديث كله أيما إيهاب دبق فقد ظهر مقار الله مقار كي لما قديو ظاهر بنغنيا لكن جلد الميتة ظاهر بنغنيا سيدا دبق مقار كي ظاهر بنغنيا دبق هذه اللي موجود وما صار حيوانا حيوان نول وحي النقضنا ظاهر بنغنيا وما صار حيوانا نجاسدي يا وحكسو دحبحي حيوان نور النجاسة التي استحالت حيوانا كالميتة إذا صارت دودا ميت بختي با ماشي يال نفا كو بختي ماشي يال جو وريو مركز دحربا كدشي ميتة دي نفتا دي دحريغي كدشي دحريغا كدخدشي حيوان كنول نقدي سكونايو ظاهر بو نقوني ميتة دي بختي نفتا دي كدشي اول نجاسة كدشي لكن حيوان نول بو نقد marka waa kan xiriir iska socda uu tagay xayawaan nool iska socdo noqdo xayawaankaas xiriirkaas socda haduu ku taabto nijaaso weeye lama oranayo waa daahir sababtoo waxa xayawaan nool oo ay iyo doofaar iyo wixii ayaga ka farcamay aan ahayn oo nijaaso ma jiro xayawaanka kale oo dhan waa iska daahir oo de xayawaankan xiriirkan meeytadu ka dhashay meeytaduna nijaaso yahay ayadiiba ka dhashay leey ayada ilaahay dhexdeedu ilaahay ka abuuray meeytada lagama ayada nafteeda ma noqonin baa leeyahay laakiin waa laga dhex abuuray waa laga dhex abuuray marka wama saar xayawaan sida wixii xayawaan nool noqdana daahir buu noqonaya saasay leeyihiin culimadu waxay leeyihiin yani waa laga dhex abuuray kownul xayawaani makhluuqan fiiha laa minha ولا قد حبوره وهي أيضا لقما أبوره من نجاسة لقما أبوره فصل النجاسات ثلاثة نجاسة صدح وهي نجاسة يكوا صدح مغلظة مثل أتكي وحكم كيدو أدقية ومخففة مثل فدودية ومتوسطة هي مثل حدحات نجاسة دحا غيبات بين نقط مثل مغلظة اللي إذا حكم كيدو أدقية midna waa mukhafafo uu fudud yahay xukunkeedu midna waa mutawasit oo waa dhexdhexaad saddexa qaybood way nijaasadu al muqallada mid la adkeeyay oo xukunkeedu uu adag yahay nijaasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima ay iyo doofaar iyo wixii ka farcamo way midkood ka farcamay waa nijaasa muqallada way adag tahay أي نجاسة سواء مغلط وأنت ضوء جار لا دقة سيد الله ظاهرين يقول شيء ضفار كنجاسة سواء أساس مغلط وي وفرع أحدهما متكوت فرع أحدهما محل ولا يعني أي حيوان كانوا ظاهرة إسكندري مثلا أي ناف عليها إسكندري أي بنغني واحد ضفار يناف لها إسكندري ضفار بنغني وما تولد منهما أو من أحدهما لبضوا وحي إسكندري يوحي متكوت حقي سكندري شيء مع حيوان ظاهر مع حيوان ظاهر نجاسة مقلدة ونقنية حكم كده وانقارد ونهي والمخففة مخففة محل ده نجاسة مخففة بول السبي الذي لم يدعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين نجاسة مخففة هي فضود وحوي ويلكي يرى كاديسي ويل كاسو ولي آن عانا وحانهين آن عنن الراشنة لبس سننا آن قارن نجاسة ديسو مخففة كاديسي بولو السبي أفر شردي باماشا لو حري سبي وشردي هرت ويل وإنوية سبيت بابا حيث قبر نجاسة ديسو kaadideedu mukhafaf ma noqoto way adagtahay sida qofka weyn kayso kala loo dhaqay marka wiil waa shardi sabi waa shardi oo sabiyad baa baxaysa bowlna waa shardi oo waa inuu wiil yahay yani kaadi waa inay tahay saxaradii baa baxaysa oo saxaradu mukhafaf ma noqoto lam yad'am ghayra laban wiilka waxaan caano ahayn waa inuusan qaadaninoo raashin ahaan qada ahaan ugu kaaftoomo naasku weli nuugaya kama kaaftoomi kara caanahaas
cuntada kale kuma kaaftoomi karo intuu caanihi ka kaaftoomo ma gaarin walam yabluq ilxawleyn 2 sanana ma gaarin intaa markii la helo kaadidiisu mukhafaf wey hadday wuxuu kaadi ahayn mukhafaf ma aha wiil baa lagu yidhi hadduu gabar yahay walow haddii caawo dhalato nijaasada kaadideedu mukhafaf ma aha waa muqallad adag tahay oo wiilka iyo gabadha maxaa kala duway baa la yidhaha wiilka kaadidiisa mukhafaf baa laga dhigay wiilka kaadidiisa yani waxaa kala duwa wiilka iyo gabadha wiilka inta badan waxaa dadka lagu imtixaamay inay qaadaan waa la jecel yahay qof kasta wiil markuu dhashay wiilka waa la qaadaya marka xukunkii baa loo fududeeyey dadka waa loo fududeeyey qofkii qaadaba inuu ku kaadiyaa laga yaaba dacanigu iska kaadinaya markuu yaryahay 2 sanana ma gaadhin walam yabluq ilxawleyn walmutawasidatu nijaasada mutawasidada ah saa'iru nijaasaat nijaasooyinka intoodii kala way oo wiilkii 2 sano aan gaarin kaadidiisii iyo ey iyo doofaar iyo wixii ka farcamay markii laga reebo wixii kaloo nijaaso aha waa mutawasido nijaasadiis xukunkeedii waa karata sida loo dahirayo almuqalladatu nijaasadii muqalladada ahayd ee la adkeeyey tadhuru way daahir noqoni bisabci khasalaat 7 dhaqmay ku daahir noqoni bacda isaalati caynihaa caynteeda markii la zuuliyo bacdigeed ixdaahuna 7 mid ka mida bituraabin mamsuuja lagu dheehay bituraabin turaab lagu dheehay ey iyo doofaar iyo wixii ka farcamay nijaasadoodu waa muqallado maxay ku daahir noqonaysaa 7 jeer in la dhaqo 7 jeer in la dhaqo 7daa jeer oo weliba bacda isaalati caynihaa caynteeda markii la zuuliyo oo bacda isaalati caynihaa maxay tahay nijaasadii meeshay ku taallaa midabkeedii baa muuqanaya horta midabkeedaa meesha laga zuulinaya waa la dhaqaya markii la gooyo oo midabkeedii la baabi'iyo kow baa laga leeyay markaas 6 kale lagu daraya oo mid ciid tahay bacda isaalati caynihaa saas wey ama way ureysay waa in urkeedii la gooyo horta mar urkeeda go-a kadib yaa markaa 7 jeer baa la dhaqaya oo mid ciid tahay wey eyga nijaasadiisa in 7 goor la dhaqayo xadiidka caddeey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum axad adinka idinka mida weelkiina hadduu ey galo 7 jeer dhaqa faqsiluuhunna 7 maraat ixdaahunna bituraab 7 jeer oo mid ciid tahay dhaqa marka eygiibuu xadiidku ku soo arooray doofaarkiina waa looga qiyaastay liannahu akhbathu minhu asagaa kasii xun wey oo eygu manaafici buu leeyahay doofaarku wax manfaco uu leeyahay male makhluuqa ilaahay xayawaanka ugu liito ugu akhasa waa khinsiirka le wax manfaco aho uu leeyahay haba yaraata ma jirto eygu manaafici buuba leeyahay waa la tacliimiyaa waa lagu ugaarsadaa xooluhu ilaaliyaa beertuu ilaaliyaa waa xayawaanka ugu caqliga badan oo ugu dhugta badan oo ugu tababarsan ugu qaadan og sifaad wanaagsan buu leeyahay eygu manaafic badan buu leeyahay laakiin doofaarku wax manfacaho uu leeyahay mamale haba yaraata waa xayawaan ilaahay khalqay bas manfaco male laakiin akhasu lxayawaanaat baa layidhaha xayawaanka midka ugu liitaa la yidhaha waa khinsiir lamiir male waxba ma kala ogaa la yidhaha wuu ka duwan yahay xayawaanka dhan wuu ka duwan yahay kiiro male waxba kama kiiroodo wax uu kala garanaya male waa kaa qofkii cunana asaga umuu la mid noqon wixii cunana saasoo kale umuun wax damiiro uu yeelanayo mare kiiro ma yeelanayo walaashiisuu gacanta la haysto meeshan hadduu arkay iyo xaaskiisii danka male waa saasuu noqonay doofaarku la mid noqonaya xayawaanka intiisa kale o dhan kiir uu leeyaha la male kan marka akhasul xayawaanaat marka waa looga qiyaasa asna bacda isaalati caynihaa ixdaahuna bituraabin almuqalladatu tadhuru bisabci khasalaat bacda isaalati caynihaa ixdaahuna bituraab waa nijaasadii muqallada ahayd 7 jeer oo mid ciidha la dhaqay mid ciid tahay baa la dhaqay walmukhafafatu nijaasadii mukhafafada ahayd mukhafafa maxay ahayd bowlu sabiyi alladii lam yadcam gayra laban walam yabluq ilxawleyn wiilkii kaadidiisii waa wiilkii aan waxaan caano ahayn cunin 2 sanana aan gaarin soo ma wiilkaas kaadidiisu waa mukhafafadii tadhuru birashi lmaai calayha maca alqalabati wa isaalati cayniha
hal mar baa biyo saa loogu shubaya bas biyo haddii lagu shubo biyahaas maca alqalaba waa lagu badinayaa khalaas way daahir noqonaysa tadhuru birashiil maayi calayha biyaa lagu shubayaa maca alqalabati wa isaalati caynha biyo badan baa saas loogu shubaya waa la raacinayaa caynteedina waa la zuuli bas walmutawasita tii mutawasitada ahayd tanqasimu ilaa qismayn laba qaybood bay noqotaa cayniya wa xukmiya nijaasada mutawasitada labadaa bay noqonaysaa cayniya mid la arkayo iyo wa xukmiya mid meesha lagu ogyahay labadaa qaybood cayniya waxaa la yidhahdaa yani nijaasada muuqato waa kasaa kuu fasiraya kitaabka alcayniyatu tii cayniyada ahayd hiya alatii tii weeye waa nijaasadii weeye lahaa lownun midab bay leedahay wa riixun ur bay leedahay wa dacmun dhadhan bay leedahay cayniyaa la yidhaha midabkeedaa meesha ka muuqdo meesha ku taallaa baa la arkaya meesha nijaasada ku taallo way soo ureysaa urkeedii baa muuqdo dhadhan bay leedahay nijaasadu dhadhan bay leedahay dhadhankeedii baa dhadhamaya cayniyo wey awsaaftii wax lagu garanayay aragtidii iyo urtii iyo dhadhankii waa wax lagu garanayay yay qabtaa cayniyaa la yidhaha falaa budda min isaalati lowniha wa riixiha wa dacmiha waa in midabkeedii la zuuliyo dhadhankeedii la zuuliyo urteedii la zuuliyo nijaasada cayniyada markaa umay daahir noqonaysa haddii la zuulin waayo ay baaqi intay baaqi tahay intay weli soo ureyso ma daahir noqonayso inta yani dhadhankeedu uu baaqiga yahay inta urkeedu baaqi yahay ma daahir noqoni waa in la zuuliyo wey caynteeda waa in la zuuliyo haddii la goyn waayo midabkeedii baa meesha ku yaala waa la dhaqay waa la goyn waayo wixii wax goynaya waxyaalaha wax gooyaa jira loo isticmaalay waa la goyn waayo in marada la goynayaba mooyaane wax kale si kasta waa lagu kari waayo markaas kadib waa la iska cafinayaa maxaa yeele marada goynteedu oo la gooyo idaacatu maal baa ku sugan maalkoo la dayaco marka haddii wax walba lagu isticmaalo oo la goyn waayo macfi bay noqonaysaa laakiin waa inayna laba isku darmanin midabka keligii waa inuu yahay hadday urti iyo midabki isla baaqi tahay urtina weli way soo ureysaa midab wax kasta waa lamadi taas ma laba hadday isla socdaan lama cafin kareen waa sidaas wey jasada waa cayniyadii walxukmiya tii xukmiyad ahayd hiyo la tii weeye laa lowna walaa riixa walaa dacma laha ur male meesha kama soo ureyso midab la male meesha kama muuqato dhadhan male laakiin meesha inay gaarto nijaaso gaarto waa lagu ogyahay nijaasa kugu soo faniintay ma wax ka muuqda meeshii male laakin waad ku ogtahay xukmiyaa la yidhaha yakfiika waxaa ku kaafinaya jaryulmaai calayha biyo unbaa saa uga raaxinaysa ayadu wax la zuulinaya male urteedii iyo dhadhankeedii iyo midab iyo wax la zuulinaya male biyo un saa u raaci bas way daahir noqotay hal mar ma biyo saa u raaci xukmiyaa la yidhaha marka nijaasaadka waa saddexdaa qaybood muqallado iyo mukhafafo iyo mutawasido saddexdaa qaybood waa inaad taqaana nijaasada sida loo zuulinayo laysaga dahirayana waa inaad garanayso faslun aqalu lxaydi yawmun walayla xayd waa dhiigga dumarka ku dhaco waa jabali oo waa dabeeco waa dhiig ilaahay ku dabeeceeye banaati aadam gabdhihiisa awlaadi gabdhihiisa ilaahay ku dabeeceeyo gabadhu markay wakti gaarto 9 sana ugu yar intuu dhiigu ku dhacay waan soo marnay 9 sano iyo kasii weyn iyo gabadhu dhiigu ku dhacaa dhiig xayd la yidhaahdo oo wakti uun iska imaadaa jiro waa dabeeci wey dhiiggaas marka muddada uu gabdhaha hayo see intuu ku dhacaya intuu haynaya aqalul xaydi xaydka muddadiisa waa muddada gabadhu ay dhiigga qabi kartay ugu yar yawmun wa layla 24 saac wey 24 saac 24 saaca haddii intaas waa inuu dhiigu inuu fara badan yahay waxba shardi maaha laakiin waa inuu joogo un waa inuu qoyaankiisii la dareemayo intaas 24 saac bas marka 24 saac markuu joogay ayuu dhiiggii la waayay way iska qalada meesha way ka qabaysanaysaa yawmiya walayla habeen iyo maalin baa ugu yar 24 saac wa qaalibuhu qaalibkiisu siday gabdhuhu u badan yihiin waay badankooda 6 aw 7 6 ayaam aw 7 ayaam bilayaaliha
bilayaaliha maca layaaliha habeenyaalkoodii la qabo 6 maalmood iyo 6doodii habeen 7 maalmood ama iyo 7doodii habeen waa siday dumarku u badan yihiin way qaalibka siday u badan yihiin way wa aktharuhu aktharkiisa meesha ugu badan yahay dhiiga xaylka uu soo dhaafi karin 15 yawman bilayaaliha 15 maalmood iyo habeenahoodii way laba week oo kaamil oo gabadhi dhiiga hay 15 maalmood waa dhiig inta ugu badan way kama badan karo markaas kama badan karo waa dhiiga meesha ugu badan way 15 ka maalmood wixii dhaafo fadamu fasaadin waa istixaado jirre way 24 saac wixii ka yarna yawmiya wa layla 24 saac wixii ka yarna fadamu fasaad waa jirro inta muddada u dhaxaysa un bay ku jiri karaan gabdhuhu habeen iyo maalin baa ugu yar 24 saac baa ugu yar dhiig ka yar ma jira intaas wax intaa ka yar hadday inta isku aragtay haddana weydo waa jirro 15 maalmood ma dhaafi kara dhiigu hadduu kor usii dhaafo wixii ka badan waa jirro inta u dhaxaysa un bay dhiigu ku jiri karaa sida ugu badan yihiin gabdhuhu qaalibka ugu badan yihiinna waa lagu sheego waa 6 beri ama 7 beri marka 6 beri buu dhiigu haynaya 24 beri bisha daahir ahaanaysa ama 7 beri buu haynaya 23 bay daahir ahaanaysa marka bishii la arkaba inuu mar ku dhaco way waa say dumarku badan yihiin marka hadduu 6 beri ama 7 beri dhaafo ilaa 15 bay fiirinaysaa 8 beri hadduu hayo hadduu 10 beri hayo hadduu 12 beri hayo hadduu 15 waa inuu gudbin way bas intaa u dhaxaysa way dhiigu waa dhiiga xaylka la yidhaahdo sidaa maxaa lagu ogaaday inuu sidaa yahay daliil baa kusoo arooray inay macnaha haweenka dhiigoodu intaa ugu yarataan ugu badan yahay maya daliilkiisu alistiqraa wey alistiqraa istiqraa maxaa la yidhahdaa tatabuc wey tatabuc culumadii wakti joogay zamankii imaamu shaafici iyo waktigooda joogay ayaa dumarkii bay raaraaceen waa la warsaday waa la dumarka qaalibkoodii intay u badnaayeen 90% iska dhig ama 95 yaa la weydiiyey maxay si aad ku hayaa si aad ku dhig kugu dhaca si aad kugu dhac saddexda qaybood baa la dhaafin waay saddexda qaybood baa la dhaafin waay markaas waa istiqsaas la xukumay markaas gabadhu saddexda qayb saas way dhiigu saas u hayaa aqallu dhuhri bayna al-haydatayn 15 yawman daahirka ay gabadhu markii dhiig ka qabayso daahirkan ay daahir ahaanaysana waxa ugu yar 15 maalmood baa ugu yar daahir 15 beri ka yar ma jiro hayla gabadha muddada uu xaylku ugu badan yahay 15 beri markuu hayo 15 ka kale wayna daahir haato daahir 15 ka yar ma jiro 15 beri ugu yar daahir aqallu dhuhri daahir misha ugu yar oo bayna al-haydatayn laba hayd u dhaxeeyo 15 yawman wa ghalibuhu daahirka غالبkiisa say u badan yihiin gabdhuhu intay daahir ahaadaan 24 yawman aw 23 yawman say u badan yihiin dhiiga xaylka qaalibkiisu muxuu ahaa 6 beri ama 7 beri soo ma daahirka marka wuxuu noqonayaa hadduu 6 beri hayo 24 beri daahir ahaanaysa bish hadduu 7 beri hayana 23 beri bish daahir ahaanaysa wala hadd li aktharihi akthar dhuhri daahirka akthar kiisu hadd male وذلك بالإجماع فقد تمكث المرأة دهرها بلا حيض ظاهرك أكثر كيس حد مله وعلى بيا وقبضة لحد بلاد مر إنه دي كدع سنة كإنه مر دي كدع ولي جيد بإنه ندي كدع بالله بيا فجزوره بكرتاوه هدي جن واسكت طبيعي وواحد دمر كإستجد دعاه وإلهي كده بيعي قاركودا ديك بالهين بس كجرو ciladna maaha dhiig haday weydo cilad maaha dhiigu dhalmada kuma tacalluqo waa calaaqa lama laha waa dhiig dabeeci oo iska imaado haday doonto gabadhu muddo dhiigu ka maqnaan karaa markaas haddana iska imaanaya weligeedba inuu dhiig ku dhicin baa laga yaabaa waxaa la wariyaa baa Faadima bintu Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam dhiigba kuma dhici jirin baa daahir iska hayn hal si aan weligeedba cibaadada yani dhiig markuu dumar ku dhaco يعني صلاة ما تكون كرانو مسومي كرانو سوما يعني قرآن كما أخرين يانو سن وقت عبادة الآن أين أصو مري ظاهر بي بيسكاه دمر قرصاص هجر ظاهر إسكاه ولا حد اللي أكثره دوري أكثر كيسو حد مله دمر كقارب وحي لنا يا قوادي أيضا وينانين هدو حوا ديقو كتغو قوادي حالي ديقي بابا كتغو دل ملآن إنه نغطون بكياب هدو ديقو بتغو ديقو دل ملكو محرنين أبو حرن ما
aqalu nifaasi majja, nifaas maxaa la yidhahdaa? dhiig umuleed. dhiig umuleed yani waa dhiigga markay gabadha umusho dhiigga ka yimaado ee canuga ka dambeeyaa nifaas la yidhahda. nifaas waxaa la yidhahdaa addamu aladii yakhruju bacda alwalad, canugu markuu soo baxa kulligii dhiigga imaanayo yaa nifaas la yidhaha. midka ilmaha kasoo horeeya dhiig hadduu kasoo hormaray nifaas lama yidhaha, midka canuga la socda nifaas lama yidhaha. canugu markuu raximka kasoo dhammaado soo wada baxo, xataa hadday mataamo yihiin, mataamihii markay soo wada baxaan kadib dhiigga imaadaan nifaas la yidhaha. ma midka ay umusha ku galaysa gabadhu. marka nifaaska dhiiggiisa waa dhiig umulasha. dhiigga umusha waxaa ugu yar majja, markii ilmihii kasoo baxay majja waa tufid, dhiig unbaa balaq kasoo yiri wuuna go-ay khalaas. in yar unbaa balaq kasoo, majja macnaa tufid weeye. laxda bay kutubta qaar ku ishaareen, markuu ilmihii soo wada baxay unbaa wax yar kasoo daateen oo go-ay. way qabaysanaysaa, horey ka qabaysanaysaa. dhiig dambaba hadday weydo way qabaysanaysaa. wa qaalibuhu qaalibkiisuna 40 yawman, 40 beri baa u badan. gabdhuhu intay umusha ku jiraan maxaa u badan? 40 beri dhiiggaa inuu joogo ilaa iyo 40 maalmood. annaga waxaa milinkaas caada aan ka dhiganay, dumarkeenu markay dhalaan 40kii bay ku jirtaa, 40 ubay yaqaan, wax kale male. dhiiggii ma ka go-ay, talo uma socdaa, 40kii bay ku jirtaa, umushii bay ku jirtaa. wa akharuhu agarkiisuna 60 yawman, 60 beri baa u badan. 60 beri yaa u badan, 3 qaybood. marka 40kii inuuna caado kaa noqonin baa la doonaya, waa in dumarkii lagu baraarujiyo. dhiiggu hadduu markii u horeysayba ka go-ay, markuu saa u umushayba hadduu dhiiggii go-ay, way qabaysani, cibaadadeeday gudanaysaa, salaadeedii, soonkeedii bay gudanaysaa, zawjkeedii bay hadday rabta la seexan kartaa, wax walbaa xalaal u noqon. haddii uu 40ku dhaafo oo dhiiggu weli socdona ma daahir noqon karto ilaa uu 60ka beri ay dhamaysto. waa inuu dhiiggu ilaa 60 beri baa la fiirinaya, 60 beri waa inuu gaaro, 60 beri baa ugu badan, markaasay ka qabaysanaysa. de wixii in caado uu noqday waxaad ku garanaysaa dumarkeena mid markay dhashaybo dhiiggii waa iga go-aylo horey ka qabaysatay ma arkeysa, mid 40kii baa dhaafaylo oo 60 beri ku jirtana ma arkeysa. mid walba 40kii bay ku jirtaa, 40kii horey ka baxdana way qabaysanaysaa. de soo in la helo maaha labada qaybood oo kale, soo in la helo maaha. mid markiiba uu ka go-ay maxaa loo laayay? dhiig asagoo ka go-ay iska fadhiyaan, 40kii bay ku jirtaa, ma tukanayso, ma soogayso, halkay iska fadhida. cibaadada waa lagu leeyahay bo, waa lagu leeyahay cibaadadaas. waxa 40kii ka badan yahayna maxaa loo laayay? waa kutub kitaabka saasaa ku qoran. wa akharuhu 60 yawman, 60 beri baa u badan. waxuu 40kii dhaafay male, mid walba markii 40ka ka baxdo way qabaysanaysaa sooma, 40 la gaaro. marka waa inay dumarku ku baraarugaan. axkaamtan sideeda dumarku khaas u yahay, waa axkaam haweenka khaas u ah. waa inay cilmigan ayagu dhegaystaan oy bartaan, waajib uu ku noqonaya. xaylka iyo nifaaska iyo yani waa arrimo gabdhaha khaas uhoo laga doonaya inay ayagu aada u bartaan. yani axkaam khusayso wey, axkaam khusayso waa in laguna baraarujiyo. faslun acdaaru salaat. wsala allahu wasalam ala sayidina maxamed.